wuxuu la ilmeynayay murugo haysata maaha waa farxad waa wasiirka beeraha ee dalka Baniin oo inta waxa ka keenay maaha dib haysta ee waa farxad uu la ilmeynayo kadib markii la shaaciyay in ay Baniin noqotay dalka Afrika ugu horeeyay ee dhoofiya suufka cudbiga hal sano kaliya ayay Baniin ka faa'iideysatay suufka lacag dhan lagu qiyaasay 1 bilyan oo dollar intaas waxa gaarsiiyay wasiirkan oo tan iyo markii la magacaabay aan fariisan ee ka shaqeeyay sidii uu dhaqdhaqaaqa wadankiisa horumar u gaarsiinahay wadankeena nimanka heesa ayay ka gaareen dalkeena wasiirka in ay wax qabtaan iska dhaafay xataa lama yaqaan xataa marka waa ujeedaan ninkaan Baniin horumar ayuu gaarsiiyay 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka ay u soo xareeyay suufka cudbiga waa wasiirka beeraha kuwana hada wasiirka Soomaaliya ka ina habeer iska daayna wax qabtaa xataa wax yar oo haba yaraatay oo la yaqaan xataa ay qabtay ma jirto halka ninkan uu oolaayo dalkiisa inuu wax weyn u qabtay inuu horumar gaarsiiyay inuu Baniin sanadka hal sano gudihiis oo wasiir ahaayeen lacagta ugu badan oo soo xareeyay ka dhigna dalka Afrika ugu badan oo dhoofiya suufka cudbiga ah marka wasiirka Soomaaliya maxaa ka sheegaysaa maxay qabtaan ma aragtay wax qabanaya ma aragtay ayagoo xataa wax horumar sameeyay iska daa xataa magaca xataa lama yaqaan xataa anaga wasiirada maxay qabtaan ma aragtay wasiir Soomaaliya wax qabanaya ma aragtay wasiir Soomaaliya oo wax qabadkiisa la sheegay ma arkaysid 4 sano ee joogan kaliya dad kaliya ay dhuuqaan oo lacag ay arusadaan haba yaraatee wax yar ay qabtaan ma jiraan halka wasiirkan arimaha beeraha u qaabilsan Baniin dalka Baniin wuxuu la ilmeynayaa farxad ka keentay in dalkiisa horumar oo gaarsiiyay hal sano gudaheeda oo joogay 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka u soo xareeyay bal fiiri ayuu ka ilmeynaya wadanimada halkaas ay dalka ka baraysaa annaga wadanimadeena waa lacag iyo dareysi inaan qof miskiin maalin walba lacag ka xoogno oo waxna oo qaban wasiirka Soomaaliya way dhibayeen wallahi aad u ceebeysiin halka wasiiradii Afrika ay ku ilmeynayaan wax yar ay qabteen kaliya ayaa ilinka keenay wasiirkaani Baniin wuxuu ka hor ilmeeyay xarunta baarlamaanka ilinta ka keed waa la aaminsan maxaa kugu dhacay wuxuu yiri hal sano ayaa xilkaaya halka sano xilkaayna wadankii waa arday wax gaarsiiyay 1.5 milyan dollarka Mareykanka ayaa u soo xareeyay suufka cudbiga ayuu dhoofintiisa ayuu maartay dalkiisa beeray waana dal badan ayuu qaatay wadanka Afrika ugu badan oo dhoofiye noqotay suufka halka kuween iska daa inay dhoofiyaan xataa wax yar xataa inay kala jari karin dadka dhacaan dadka baadama wax xabeeraatay ma jirto waxay qabtaan Soomaaliya muuqaalka meel gaarsiiyay ugu wadanimada waa wax la iska keenay waa wax loo dhasho hal sano ayuu joogay intaas lacag dad u soo xareeyay ilinta ayuu cesho waay wasiirada Soomaaliya iska daa xataa inay wax yar soo xareeyaan adiga ay maalin walba guriyada ku duminayaan kan dumi adiga ay jabka lacag kaleena iska daa inay wax yar qabtaan wasiirka beeraha Soomaaliya xoo qabtaa wasiirka waxbarashada wasiirka dhaqaalaha wasiirka dekada muuqaalka qabta wasiirada Soomaaliya hala gaarsiiyo ha arkaan ninkan kaliya oo wasiirka beeraha ee dalka Baniin in dhaqaale u badan Soomaaliya dhaqaale u badan dalkiisa u soo xareeyay bal fiiri anaga wasiirada ma qabtaa ma aragtay wax qabanaya ma aragtay ayagoo leeyahay wax qabada sameeyeen ma arkaysid habeeraad wax qabta wala magacaaba lacag iska gurtaan nin walba ku 4 sano maanta hore u qoqola midka cusub ayaa imaado والله واحد يابل ودنمده waa wax cajiiba ninkan oo jeedin waa wasiirka beeraha ee dalka Baniin hal sano gudaheed ayuu soo xareeyay 1.5 milyan wallahi oo inta oolayo ma aha in murugo ama familkiisa baabeen ama ilmihiisa ka dhinteen ma aha waa farxad oo la oolayo dalkiisa lacagta u soo xareeyay iyo magaca uu sameeyay halka anaga magaca ka raadin lacag ina dadka dhacno ina waxba qaban ina iska jifin mukafin u daarayay isaaq wax siino kaliya oo wasiirka Soomaaliya wuxuu qabtay wajito muuqaalka meel gaarsiiyay qof walba ayaa og in wasiirada Soomaaliya magacaabo magacyadiin wax qaban waa iska magacaaba wuxuu lacagtu iska gurtaan qalaad hotel qaali digi inta ku dooro digi hal habeen ku socdaan hal habeen kaliya ku dooro ku socdaan halka nimanka Baniin joogana guriyada ay socdaan ku faraxsan dalkooda wax yar oo qabtaan ilmeenayo aad baa wax ma wasiirada Soomaaliya maalin walba wax qabad aan lagu caay shaqare muuqaalka aad u maadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.